kula wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka qodobada wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah xiisad xooggan oo ka taagan magaalada Jigjiga iyo kacdoon shacab oo ka curtay kaasi oo looga soo horjeedo madaxda ugu sareysa dawladda deegaanka Soomaalida kuwaasi oo ku dhaqaaqay cuburin iyo waliba sidoo kale lunsasho hanti dadweyne madaxweyne Mustafa Cagjar oo xabsiga u taxaabay fanaaniin iyo waliba culimo kadib markii uu dareemay gawaabsiga ee rajada si joogitaanka kursiga madaxtinimada ee dawladda deegaanka Soomaalida dhanka kaleeto waxaa shalayto shirqool dil ka badbaaday Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo ku sugnaa gobolka Doolo halkaasi oo uu u tagay qaraabo salaan iyo waliba sidoo kaleeto fidinta dacwada islaamka رئيسul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo isku shaandhayn ku sameynaya madaxda ugu sareysa dawlad deegaanada dalka Ethiopia kadib markii qaar kamid ah lagu helay musuqmaasuq ugu weynaa abid oo markaasi ay ka geystaan gudaha dawlad deegaanadooda adaba maxay tahay talaabadan uu qaadayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ma saameyn doontaa maamulka Mustafa Maxamed Umar oo ku eedeysan in markaasi ay lunsadeen lacag malaayiin kuwaasi oo laga daabulay gudaha dawlad deegaanka Soomaalida isla markaana lagu maalgeliyay wadamada dariska madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayaa bilaabay shirar u muuqdo markaasi boor isku qaris iyo waliba sidoo kale shirar markaasi lagu abaabulayo shacbiga dawladda deegaanka Soomaalida kadib markii ay kacdoomeen isla markaana ay ka gadoodeen qaabka wax u wado shirarkan ayaana la sheegay in ay ka dhici doonaan gobolada qayrkooda ka hadhay Afdheer Doolo iyo waliba gobolka Wardheer xooga TPLF ayaa heshiis ay la galashay dawladda federaalka Ethiopia ku dartay in la sii daayo maxaabiista siyaasadda u xiran kuwaasi oo kamid yahay madaxweynihii hore dawladda deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Umar hadaba ma ogolaan doonaan madaxda dawladda deegaanka Soomaalida kuwaasi oo gabi ahaanba ayagu aan rabin in la soo daayo Cabdi Maxamuud Umar dhanka kaleeto waxaa dabaaldegyo ay ka socdaan goobaha markaasi ama deegaanada uu ka soo jeedo Cabdi Maxamuud Umar guud ahaan dawladda deegaanka Soomaalida ayaana laga dareemayaa markaasi diyaargarow wasiideynta Cabdi Maxamuud Umar ayadoo wafti ka socdo wadanka Kenya kuwaasi oo isku jira midowga Afrika urur goboleedka IGAD iyo waliba dhinacyada heshiisyada ku gaaray in la sii daayo maxaabiista siyaasadda u xiran ay ka degeen magaalada Maqale si ay u kurgalaan heshiisyadii dhawaan la galay ay galeen xooga TPLF iyo maamulka Abiy Ahmed hadaba ma laga yaabaa in dawladda federaalka Ethiopia oo ayadu arintani saxiixday in ay ka dhabayso isla markaana ay sii deyso dhammaanba maxaabiista u xiran siyaasadda ama u xiran markaasi kiisaska siyaasadeed ay ka geysteen gudaha dalka Ethiopia hadiise arintani ay dhacdo maxaa markaasi dawladda deegaanka Soomaalida uga qorsheysan ama muu ka dhici doonaa isbedelka sida tooska loo rajeynayo inuu ka dhaco gudaha dawladda deegaanka Soomaalida warkana ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa haddii tahay markaad kuugu horeysay ee barteen inaad soo gaadho channelka subscribe saaro gaarsi asxaabtaada kale hore aad noola joogtayna waad ku mahadsan tahay halkaa kasii wad daawashadaada aynu ku bilownay kacdoon xooggan oo markaasi looga soo horjeedo maamulka Mustafa Maxamed Umar ayaa ka curtay gudaha dawladda deegaanka Soomaalida iyadoo maalmihii ugu dambeysay dawladda deegaanka Soomaalida ay la dhacaysay kacdoono iyo waliba arrimo siyaasadeed oo markaasi ka dhashay dilkii Allah naxariisay Juwaare Subcis iyo waliba qaar kamid ah eheladeeda oo la sheegay in si xoog xabsiga loogu tuuray kadib markii wax cadaalada ay ka waayeen dawladda deegaanka Soomaalida ee hogaabinaya Mustafa Maxamed Umar dhanka kaleeto waxaa ka socday gudaha dawladda deegaanka Soomaalida cuburin iyo waliba markaasi dad ka aragti duwan madaxweyne Mustafa Umar oo markaasi ayagu xabsiga loo taxaabayo iyadoo waliba aan markaasi wax su'aalaha ama markaasi waxba laga weydiinaynin hadallada iyo waliba qoraalada markaasi ay ku soo qorayaan barahooda kala duwan ay ku leeyihiin social media dhinaca kaleeto waxaa la xiray fanaaniin iyo waliba culimo qaar kamid ah odayaasha dhaqanka oo ayagu gabi ahaanba ka hadlay qadiyad dhawaan ka taagnayd deegaano ay ku dirirayeen laba beelood oo walaalo ah kuwaasi oo ayagu aan waxba iskula harin markii dambana dawladda deegaanka Soomaalidu ay la safatay hal beel oo dhinaca waxaana la arkayay xasuuqi ka dhacay magaalada Shilaabo kaasi oo lagu xasuuqay hal beel oo markaasi dhinac ahayd waxaa dhinaca kaleeto baaqyo kala duwan soo saaray odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobolkaasi ayagoo gabi ahaanba odayaashaasina xabsiga loo taxaabay waxaana aad arkaysaa in cuburinta iyo waliba la safashada beelaha qaar ay markaasi keeni karto xasuuq iyo waliba sidoo kaleeto kala aragti duwanaan ka dhaxdhalta dadka walaalaha ee ku dhaqan gudaha dawladda deegaanka Soomaalida dhanka kaleeto madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ayaa xabsiga u taxaabay fanaaniin iyo waliba culimo Soomaaliyeed fanaaniinta xabsiga loo taxaabay ayaa dhawaan waxaa qaar kamid ah ay qaadeen markaasi dhaanto u muuqatay ama erayadeedu ay ku jireen
kuwa markaasi lagu durayo nidaamka ka jira dowladda deegaanka soomaalida, kuwaasi oo gebi ahaanba ayagu ku dhaqaaqay dhulboob, ku tagrifal awoodeed iyo weliba musuq maasuqi ugu weynaa abid oo ka dhaca gudaha dowladda deegaanka soomaalida. waxaa dhanka kaleeto culimo Soomaaliyeed ayaguna lagu dhibaateeyay gudaha dowladda deegaanka soomaalida, kuwaasi oo ayagana khudbo ay ka jeediyeen masaajida magaalada Jigjiga iyo guud ahaanba dowladda deegaanka soomaalida uga hadleen dhibaatada ka jirta gudaha dowladda deegaanka soomaalida. dhanka kaleeto waxaa shirqool dil shalay ka badbaaday Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ku sugnaa gobolka Doolo, halkaasi oo uu tagay qaraabaslaan iyo weliba sidoo kale fidinta dacwada islaamka. maalmihii ugu dambeysay Sheekh Maxamed Cabdi Umal ayaa waxa uu ku sugnaa gudaha dowladda deegaanka soomaalida asagoo socod ku mariyay gudaha dowladda deegaanka iyo weliba asagoo meerarka qaar markaasi khudbad ka jeedinayay masaajida qaar iyo weliba sidoo kaleeto shirqoolka dil markaasi ay soo abaabuleen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa gudaha dowladda deegaanka soomaalida, kuwaasi oo gebi ahaanba kasoo horjeedo Sheekh Maxamed Cabdi Umal khudbooyinka uu ka jeedinayay masaajida, kuwaasi oo inta badan taabanayay dadka Soomaaliyeed iyo weliba qaab dhaqankooda. waxaana la arkayay qaar ka mid ah dabley u hubaysan si qabiil ama markaasi si firqadiimeed camal ayaa shalayto weerar ku soo qaaday xilli uu khudbad ka jeedinayay mid ka mid ah tuulooyinka ku yaalo gobolka Doolo. waxaana la arkayay Sheekh Maxamed Cabdi Umal iyo weliba dad markaasi ilaalinayay oo iyagu isku xilqaamay sidii sheekha ay u difaaci lahaayeen oo markaasi dhaawacyo ay soo gaadheen. dowladda deegaanka soomaalida ayaa ku tilmaantay inuu sheekhu ku dhaqaaqay waxyaabo aan gebi ahaanba laga ogolayn gudaha dowladda deegaanka soomaalida. sheekhu waxa uu ka olanaa khudbad markaasi uga hadlayay subaca iyo weliba sidoo kaleeto qaabka Soomaalidu ay u akhriso quraanka kariimka, laakiin si kastaba ugu dambeyn sheekha waxa uu la kulmay wacdaro la yaab leh iyadoo weliba sheekha iyo weliba qaar ka mid ah ilaaladiisu ay soo gaadheen dhaawacyo fudud. waxaa dhinaca kaleeto halkaasi gaadhay ciidamada Leopolis oo ayaguna la sheegay inay xabsiga u taxaabeen dadkii khudbadda loo akhrinayay iyo weliba sidoo kaleeto Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo markii dambe xabsiga laga soo daayay. si kastaba xaaladda gudaha dowladda deegaanka soomaalida ayaa u muuqato mid gebi ahaanba ugu dambeyn aan ka fursan doonin gacan ka hadal iyo weliba sidoo kaleeto in gebi ahaanba ay shacbiga Soomaaliyeed iska dulqaadaan dhibaatada uu ku hayo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo ku dhaqaaqay tallaabooyin u muuqda kuwii Cabdi Maxamuud Cumar horey ay uga diideen shacbiga dowladda deegaanka soomaalida. dhinaca kale ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu isku shaandhayn ku samayn doono dhammaanba madaxda ku eedeysan musuq maasuqa. waaxda dabagalka musuq maasuqa ee dalka Ethiopia ayaa ku eedeysay madaxweyne Cagjar iyo faamilkiisu musuq maasuqii ugu weynaa abid oo ay ka geystaan gudaha dowladda deegaanka soomaalida madaxdii soo martay. waxaa la arkayay hal maalin oo kalita in xawaaladaha qaar ee ku yaala degmada Wajaale in laga diray lacag gaadhaysa $1 milyan, taasi oo la marsiiyey wadanka Kenya iyo weliba sidoo kale magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland. waxaa dhinaca kale la soo ogaaday mashaariico aad u tiro badan oo faamilka Mustafa Cagjar ay ka fulinayaan magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Isliya Soomaalidu ay ku badan tahay magaalada Mombasa iyo weliba sidoo kale magaalada Hargeysa. waxaana lacagtan loo xilsaaray nin la sheegay magaciisa lagu sheegay Mr. 10% oo la dhashay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida. ninkan ayaa ku markaasi astaysan in ganacsi walba oo ku jira ka jira gudaha dowladda deegaanka Soomaalida ku leeyahay 10% asagoo on wax markaasi lacaga ku darsanin dadka uu shirkada ama markaasi lacagtaasi uu ku yeelanayo. si kastaba xaaladda gudaha dowladda deegaanka Soomaalida ayaa u muuqato mid markaasi ay dowladda federaalka Itoobiya soo fargelisay, isla markaana waxa la arkayaa waaxda dabagalka musuq maasuqa oo wareegaysa xaafadaha iyo weliba degmooyinka gobolka guud ahaanba dowladda deegaanka Soomaalida si fagbi ahaanba ay u fashiliyaan musuq maasuqa baahsan ee ku kacday dowladda Mustafa Maxamed Cumar. si kastaba shacbiga dowladda deegaanka Soomaalida oo ayagu hore ugu eedeynay Mustafa Maxamed Cumar ku takrifal awoodeed, dhulboob iyo weliba musuq maasuqa ama lunsashada hantida dadweynaha, beegsiga shakhsiyaad gaara iyo weliba sidoo kaleeto beegsiga beelaha qaar ayaa gebi ahaanba haatan waxay u midoobeen shacbiga in ay dhigaan mudaharaadyo waaweyn oo gebi ahaanba ay uga soo horjeedaan maamulka Mustafa Maxamed. laakiin waxaad moodaa inay jiraan markaasi in uu adeegsanayo awood
iyo weliba sidoo kaleeto ciidamada liyo booliska oo iyaga laftirkooda ee ku milmay siyaasadda ka jirta gudaha dowladda deegaanka Soomaaliya isla markaana aan ahayn kuwa dhexdhexaada ayaguna in markaasi loo adeegsanayo in gebi ahaanba laga hor imaado ficilada iyo weliba tilaabooyinka ay qaadayaan shacbiga gudaha dowladda deegaanka Soomaalida dhanka kaleeto TPLF ayaa heshiis ay la gashay dowladda federaalka Ethiopia ku dartay in la sii daayo maxaabiista u xiran siyaasadda waxaana kamid ah maxaabiistaasi Cabdi Maxamuud Cumar Cabdi Ilay oo ahaa madaxweynihii hore ee dowladda deegaanka Soomaalida waxaana la filayaa asaga iyo weliba shakhsiyaad markaasi uu ka mid yahay in markaasi xabsiga laga sii daayo haddaba maamulka dowladda deegaanka Soomaalida ma ka ogolaan doonaan maamulka Abiy Ahmed in gebi ahaanba Cabdi Maxamuud Cumar iyo maxaabiista la midka ee u xiran dowladda deegaanka Soomaalida in la sii daayo arrintaasi waxay ka mid tahay heshiiskii ay gaadheen TPLF dowladda federaalka Ethiopia iyo weliba midowga Afrika oo goboleedka IGAD iyo korjoogtada caalamiga markaasi ka socota wadamada reer galbeedka heshiiskinina ma aha mid markaasi ay wax ka qaban karaan ama ay wax ka bedeli karaan maamulka dowladda deegaanka Soomaalida ugu dambeyn waxaa la arki doonaa in Cabdi Maxamuud Cumar la soo daayo waxaana ilaa iyo xilligan la sheegay inay jiraan meelo laga abaabulayo aan dhahe markaasi kacdoon ama markaasi dabaaldegyo lagu taageerayo sideenta Cabdi Maxamuud Cumar oo ka mid tahay deegaanada asaga ehel ahaan uu ka soo jeedo iyo weliba sidoo kale gudaha dowladda deegaanka Soomaalida qaybo ka mid ah oo laga diyaarinayo dhalinyaro aad u tiro badan oo markaasi la baxay magaca heego xilligii Cabdi Maxamuud Cumar uu xilka ka degay kuwaas oo ayagana u diyaar garowsan ama diyaarba u ah marka maxaabiista ooda laga fasaxo in ay hal mar gudaha dowladda deegaanka Soomaalida ka dhigaan dabaaldegyo iyo weliba mudaharaadyo looga soo horjeedo maamulka Mustafa Maxamed Cumar dowladda deegaanka Soomaalida oo arintaasi ka hadashay dhowr marna waxa ay wadaa shirar waaweyn oo markaasi u muuqdo kuwa boor isku qarisa ama lagu abaabulayo kacdoon shacab oo looga soo horjeedo arinta ka dhici doonto gudaha dowladda deegaanka Soomaalida waxa sida haatan la xaqiijiyay gebi ahaanba socdo in markaasi la dhigo shirar waaweyn kuwaasi oo lagu qabanayo gobolada qayrkooda ka hadhay ee ka tirsan gudaha dowladda deegaanka Soomaalida kuwaasi oo ay ka mid tahay gobolka Afdheer Doola iyo Wardheer waxaana la arkay in markaasi xisbiga la baxay barwaaqo uu madaxda ka yahay Abiy Ahmed in markaasi laantooda dowladda deegaanka Soomaalida ay wadaan shirar ay ka dhigayaan goboladaasi waxaana shirarka la sheegay inay ka soo qayb gali doonaan dhamaanba shacbiga oo lagu khasbi doono in ay si khasab halkaasi uga qayb galaan laakiin shacbigu waxay gabi ahaanba ka daaleen shirar markaasi loo qoslo isla markaana loo sacabiyo madaxda oo ayagu dhibaatooyin kala duwan ka wada gudaha dowladda deegaanka Soomaalida haddii aynu dib jalacno dhibaatada ka jirto magaalada shilaabo waxaan ognahay in ilaa iyo xilligan dowladda Mustafa Maxamed Cumar wax ay tilaabo aysan ka qaadin dhanka kale gobolka Afdheer laftirkiisa waxa ka jira iyadna qabiilo markaas isku maceelisanay isla markaana rag iska laayay ilaa iyo xilligan dowladda deegaanka Soomaalida waxba aysan ka qabanin maamulka dowladda waxaad moodaa in madaxweynaha gobol aan dhahe gudoomiyaha gobolka markaasi dhibaatadu ay ka dhacdo looga dambaynayo sida uu ku xaliyo xataa hadii uu qabyaalad sameeyo wax markaasi uu ka qabanayo Mustafa Maxamed Cumar ma jirto waana dhibaatooyinka inta badan haatan ka jira gudaha dowladda deegaanka Soomaalida waxaanu ku hawlanahay sidii aan gabi ahaanba xogaha ku soo aruurin lahayn iyadoo waliba aynu idin wadaagayno isla markaana hal dhinac aanu markaasi u janjeeraynin waxa ilaa iyo xilligan aan cadaalad helin ayaan subcis iyo waliba sidoo kale walaasheed jawaare subcis oo lagu dilay halkaasi ilaa iyo xilligan wax cadaalad ay heleen ma jiro dambiilihii ay maxkamaddu ku xukuntay xukunka dilka lama fulinin waxaana la sheegay in booskiisa lagu bedeli doono qof kale markaasi asagoo aan waxba galabsanin sida ka jirtaba Soomaaliya guud ahaan iyadoo cadaalad darradaasi ay jirto waxaanu ku hawlanahay hadana sidii aan xogaha iyo macluumaadka rasmiga ee ka jira gudaha dowladda deegaanka Soomaalida ay idinku soo gudbin lahayn dabadayaal intaas ayaanu ku soo koobaynaa qodobadii aanu ka uga hadlaynay xaaladda cakaran ee ka taagan dowladda deegaanka Soomaalida waxyaabaha ka soo kordho wararkeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa tan iyo kulanti dambana waxaan iga tagay sidaas iyo amaana Allah